إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، موضوع كلمة نعوة عنوانك محاضرته وسيدو ولالك الشيء أمراض القلوب وعلاجها. cudurrada qalbiga gala iyo daaweyntooda. maxaa lagu daaweeyaa? see loo daaweeya? waa mowduuc runtii aada muhiim u ah, aadna aan ugu baahannahay dhammaanteen, lianna meeshuu ku saabsan yahay ee uu ka hadlayo baa waxay tahay meel aada muhiim u ah. waa xarunta jidhka wey. nabigeenna tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka nucmaan ibni bashiir fi saxiix aakhirkiisa ayuu nabigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam: alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. jidhka ibni aadamka waxaa ku jira buu nebigu uri sal lla alay wasalam cad yar oo hilib ah. waxaa laga cabiray mudqa. mudqada waxaa la yidhaahdaa wixii hal mar inta afka la geliyo la calalin karo. cad yar oo hiliba ayaa jidhka ku dhex jira. cadkaa hilibkaa hadduu hagaago oo fiicnaado, jidhku waa hagaagaya. cadkaasi hadduu hallaabana, jidhka intiisa kale waa hallaabaya. waa qalbiga buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. bimacnaa waa markaskii ama xaruntii jidhka aadamaha waa. waa maxalu اliimaan wاlkufr. mabaadi'da meesha ay gasho wey. waa maxalu الruux, asalka waa wey. ibn اlqayim calayh raxmat ullah isagoo xadiidkaa ka qaadanaya markuu ahmiyadda tilmaamaya qalbiga wuxuu yihi: qalbigu waa boqor, xubnuhuna waa ciidankiisii wey. boqorku hadduu hagaago, amarka ka soo fulaya uu siinayo ciidankiisa iyo wasiirada iyo dowladda inteeda kale, amarkuu siinayo amar fiican buu noqonaya. hadduu madaxa sare iyo boqorku hallaabana, amarka ka soo fulaya uu dowladda siinayo waa amar hallaysan, wabitaali waa hallaabaysa. xubnuhu marka way amar qaataan un. amarkuu isagu siiyo unbay qaataan. laakiin meesha wax dejisa, wax taqdiidisa, fikirta, go-aanka gaadha waa qalbiga wey. ahmiyadaasuu marka leeyahay. sidaas daraaddeed ayaa waxaa la siiyey cinaayo khaasa. si gooniya baa mudnaan loo siiyey, mudnaan ka badan midda la siiyey jidhka. mudnaan ka badan midda la siiyey jidhka aadamaha ayaa qalbiga la siiyey. oo sidii looga shaqayn lahaa, sidii loo hagaajin lahaa, sidii axwaashiisa laysu bari lahaa, sida amraadda gashay iyo loo cilaajin lahaa,
cinaayo khaas ah oo aada u xeel dheer baa shareecadu siisay leanna ahmiyadda iyo mudnaanta uu leeyahay ayay markaasi ku salaysantao ka duulaysa qulubta aadamaha qur-aanka kariimka markaad fiirisay axaadiista nabiga sal lla alay wasalam qaybay u qaybsanta wanagii ka hadlaynay darsigeennii xalay ku saabsanayd almakhraj min alfitan ku saabsanaa xadiidkii xudayfa waa kii aan ku tilmaannay qalbigu waa meesha fitanku marka hore loo bandhigo waa meesha weerarka ugu horeeya uu ku dhaco waay mid yeela iyo mid diidaba qalbigu waa maxalu nadar illaahi min cabdihi tabaaraka wa tacaala waa meesha ilaahay addoonkiisa uu ka fiirinayo ee uu kala mucaamaloonayo waay waa kii xadiidka nabigeennu aha sal lla alay wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa acmaalikum laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma fiiriyo jidhkiinna iyo sawiradiinna toona laakiin allah wuxuu fiiriyaa qalbigiinna iyo acmaashiinuu fiiriyaa yacni qalbiga iyo waxa ka dhalanaya oo camalka ah taasaa ilaahay agtiisa miisaanka fuulaya laakiin ruuxa jidhkiisa ma xoog badan yahay ma tabar yar yahay muxuu ahaayey ma suuradiisu ma quruxsan tahay ma fool xun tahay ma dheer yahay ma gaaban yahay ilaahay miisaankiisa waxba kuma aha dhankaa lagama fiiriyo laakiin waxaa la fiiriyaa maxaa qalbigiisa ku jira maxaase ka dhashay oo xubnuhu sameeyeen oo acmaasha ah taasaa ilaahay fiiriyaa tabaaraka wa tacala marka ahmiyad aada u weyn buu marka leeyahay addoonkana waxaa looga baahan yahay inuu mudnaanta uu leeyahay uu qalbiga siiyo qalbigu mudnaanta uu leeyahay salafku waxay dhihi jireen ridwaan ullaahi calayhim maanaan ka zuulin inaan quluubtannada cilaajinayno oon la dadaalayno oon ku mashquulayno oo aanu muxuu ahay wahaakada camal kasta oo uu ruuxu qabanayo wuxuu u noqonayaa waxa qalbiga ku jira carabkaagu wuxuu samaynayo waxaa lagu miisaamayaa oo u laabanayaa maxaa qalbiga ku jira niyadda uu hadalkaasi ku soo baxay maxuu ahaa xubnaha kale waxay sameeyaan waxaa dib loogu celinayaa maxaa qalbiga ku jiray oo xubnahani ay ku sameeyeen shaygan saas daraaddeed baa xadiidkii jaliilka ah waa kii nabigeenu sal lla alay wasalam inama alacmaalu binniyaat camal oo dhan niyadu u noqonaya camal oo dhan niyaduna waa camalun min acmaali alqalbi waay acmaasha quluubta mid ka mida weeye niyadu iyo maqaasidu sidaas daraaddeed arrintaasi waxay tilmaamaysaa quluubta iyo ahmiyadda ay leedahay mar hadday sidaas tahay waa in marka la siiyo qadar ku filan oo mudnaana in la siiyo waay oo la barto quluubta jidhka waa naqaanaa dabacaddiisa waa naqaanaa wuxuu u baahan yahay waa naqaanaa maxaa dhibaato u geysta waa naqaanaa hadduu jirrado xaggee lala aadaayo yaa daaweeya waa naqaanaa muxuu ahaayey hadday dhibaata ku timaado see loola tacaala waa naqaanaa laakiin jidhka qeybta ugu muhiimsan oo qalbiga iyo ruuxdii ah wax badan kama naqaano wabitaali waxay u baahan tahay in laga barto waxyiga rabbi tabaaraka wa tacaala oo axaadiista nebiga qur-aanka kariimka iyo axaadiista isugu jira markaan u laabanno qur-aanka iyo axaadiista nebiga sal lla alay wasalam waxaa inoo soo baxaysa quluubtu xaaladaha maraya marka la fiiriyo qaybay noqotaa oo qur-aanku ku tilmaamay quluubta qaarkood waxaa lagu sifeeyey oo lagu tilmaamay inay tahay quluub ama qalbi meyd oo bakti ah qalbi meyd ah oo bakti ah ruuxii lahaa waa ruux naftii aadamuhu ku jirto waa shaqaynahayaa waa ordayaa waa xamaalahayaa muxuu ahaay yani waa tabcahayaa ruuxii waaka waa ordahayaa laakiin qalbigiisu waa meyd waana bakti
الله تبارك وتعالى قرآن كريم كأه أيوم يلكم إذا كنت المامي وربي وحي وما يستوي الأحياء ولا الأموات كوا بختك ميت كأه هي كوا النول مسنا وحلقة وذا كوا قلوب تود النوشة وإيمانك كن نوشة وخيرك كن نوشة هي كوا قلوب تود ميت كتهاي وإيمانك أوسنجلين لو ذا سمسنا بمعنى لا يستوي المؤمن والكافر وكلوه كافر كميت مع الله مقعوي لأنه ميت القلب مؤمن كان حي وحلو يري لأن حياة كلا حيس حيوانات كي النوله ودن تالق ما هذا مركا وحياة خاصة وحياة القلوب حياة القلوب كان حياة القلوب كان أصل وحو أما دد النوله يسوى إيمانك مركا قلوب تقار كود وقلوب ميتة وقلوب بختئة والنولين تكلا آيات كلا مدى عبيرة رب الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه عد بختئ هيت والنولين وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه markii hore bakti buu ahaa kadibna waa la nooleeyay macnaha waxa laga wadaa gaal buu ahaa qalbigiisu meyd yahay iimaan baa la geliyay qalbigiisi waa la nooleeyay kadibna nuur baa la siiyay wax ku kala saaro wax ku kala sooco wax ku kala baxaan ka iyo ma isku midba mid qalbigiisuna bakti yahay hadana mugdiye ku dhex jira isku mid ma marka waxa la isgarab dhigayaa مؤمنكي قلبي سنولادي هدنا إفتينك هيستي علمك إفتينك وحكوك لأرك يطوش مقدقاسي وحكوك لسارة هيو ميشو لوكتا ليغا يو محارب كإيمانا يو محا مصلحة يو نولوش حقيقو هاكسنتا يشيتكو قادة يو ونولوش شرنو واو إفتين سنتا إيو مد قلبي سنة ميدي هدنا مقدية كترسانو تيجدون لوضاسي مسيميهين مسينو معناها النبي حديث كيسات المامي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت من النبي صلى الله عليه وسلم روح إلهي حصية يكأن حسين وحي كدغيهين مد ميد وبختية يمد نول بي كدغيهين واسيدي مد نول يمد بختية وكلوه قلوب تقاركوت صفاتها سيليه وقلوب بختية ونولين بالنفة لما قلينين نوع الله هذا القرآن كنت المامي وحويا وقلوب جرن القلب المريض وقلب جرن جرد قلوب تكون عداي علماء وحيدا والله مت إما مرض الشهوة وإما مرض الشبهة عذر الشهوة كيمت أما عذر شبهة شبهة هذا وحلي هذا ووح عن دين أهين oo diin ahaan isu ka tusaway waxaad ugu qanacsan tahay inuu diin waxaad ugu qanacsan tahay inuu ilaahay ku dhaweynayo waxaad ugu qanacsan tahay inaad ilaahay ridda kaga helayso hadana ma dalika diin ma ah wada ku khaldan wixii sidaas oo kala wax la yiraahdaa shubha la dhaha waa wax isu ka ku khalday xujo isugu ka ekaysiiyay diin isaga ka dhigay ama lagugu ekaysiyo lagaaga dhigay diin ahaan u qaadatay waxa meesha soo galay marka bidacii khuraafaadkii waxyaalahaas oo dhan diinta u yara eegeen diinta ahayn ee diinta loo ekaysiinayo cudurkaasi waxa la yiraahdaa marad ashubha nooca labaad waa maradka loo yaqaano marad ashahwa shahawaadka waxyaalaha naftu jeceshahay waa adduunyada شهواتك حولها شهواتك ملكي بقرطويدا شهواتك لبدا الجنس دخدودا يعني وحيالها النفط تعيشه دونيسو halkaasi cudur kaga yimaadana waxa la dhahaa maradu shahwa leeyahay quraanka kariimka labadaba waa tilmaamay Allah tabaaraka wa taala munaafiqiinta markuu ka hadlay fi qulubihim marad wali qalbiyadooda cudur baa ku jira طبعا waa cudurkaasi waa cudur nifaaq waa nifaaq waa cudurada kamida gaalnimadu waa cudur nifaaq waa cudur muxuu ahay
itibaacu lhawa waa cudur marka quluubtooda cudur baa ku jira nooca labaad ee cudurkana aayadda kale alla ku tilmaamay fi suurati alaxzaab ku jirta markuu la hadlayay rabbi tabaaraka wa tacaala dumarka falaa takhdacna bilqowl fayطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa alla wuxuu yidhi hadalka markaad ragga la hadlaysaan hadalka ha u jilcinina ha dabcinina oo haddaad hadalka dabcisaan oo jilcisaan waxaa damac gelaya midkii qalbiga uu cudurku kaga jiray waa cudur noocee waa cudur shahwo ah ninkii markii horeba damaca dumar ku jiray oo qalbigiisuba arrintaasi ka buuxeen haweenay hadalka u jajabinaysa u jilcanaysa markuu arko waa waraabo uun aad hilib ku hor wado waay waraabo gaajaysan adiga hilib hor dhigtay soo ku daba ordi maayo marka falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waa maradu shahwa wey marka labadaa cudurba markay ku dhacaan qalbiga ama mid ka mida waxaa la yidhahdaa qalbi mariida la dhaha qalbigu waa jirayn ma fayooba markaas waa nooca labaad sifaadka qaarkood oo qulubta qur-aanku siiye waxaa ka mid a alqalbu alqaasi waa qalbi ingegan qalbi dabacsan maaha qalbi jilicsan maaha khayrka uma jilicsana markii la wacdiyo ma ta'ahuro markii wax loo sheego ma qaato markuu cilmi maqlo kuma intifaaco waxba iskama bedelaan meeshiisii buu taagan wax kasta oo lagu waana qaato haddii la tuso isma bedelayo aayaadka ilaahay ee bedelo qulubta ama aayaadka kowniga ah ama aayaadka tanziiliga ah oo qulubta saamayn weyn ku leh isaga ma saamaynayso meeshiisii buu ka joogaa waa geedkaa biyaha ku dhex ingegay waay wax kasta adigu sheeg ilan sideedaba dhirta iyo noolaha iyo hadduu ingego oo meel biyo la-aana ku ingego cillada uu la ingegayna ay tahay biyo la-aan wuxuu u baahan inuu biyo helo markuu biyo heloba waa qoyaya laakiin maadadii qoynaysayba dhexdeedii hadduu ku ingego ingejiso waxaa rajo laga qabaa inuu dib u qoyahay rajadeeda ma jirto marka waa ruux ingege wey waa qalbigiisii waa ingege qur-aanka kariimku kuwuu tilmaamaya way rabbi maruu leeyahay tabaaraka wa tacaala fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah yacni halaag iyo aafo iyo cadaab iyo waxaa iska leh dadka ay quluubtoodu ingegtay oy adkaatay oo ilaahay dikrigiisa ka ingegtay inta badanna waxay dhacdaa addoonka waxaa cudurka cuquubadaasi ku dhacdaa waa cuquubaad ilahay xaggiisa ka yimaado qalbigaaga in la ingejiyo cuquubadaasina inta badan waxay ku dhacdaa ruuxa laba mid aayaad ilaahay oo kowni ah baa si fiican loo tusay aayadihii waxba ku qaadan waayo aayaadka rabbi ee tanziiliga iyo qur-aanka baa ilaahay u furay waxba waa ku qaadan waayo natiijada ka dhalata waa inuu qalbigiisu ingego waayo fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri illahi meeshay ku imaanayso siyaaqay ku imaanayso waa siyaaq ka hadlaya qur-aanka kariimka ka hadlaya waa aayaadka kowniga ana fi suurati albaqara rabbi tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayay qisadii reer bani israa'iil intay ay ruux dileen oo ay ruuxii kuwii dilay inkireen oo isku riixriixeen idinkaa dilay iyo maanaan dilin iyo muran dhex maray alla tabaaraka wa tacaala uu amar la siiyey iyagii oo la yidhi neef loo ah gowraca kadibna neefka qaybihiisa qayb ka mid ah ee ku dhufta waa soo noolaanaya sidii bay akhiiran markii ugu dambeeyey adugu sameeyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala ruuxii dhintay buu soo nooleeyey hortoodaa la keenay wixii la isku haystay waa la kala saaray naf dhimatay oo la soo nooleeyey oo hortooda la keenay waa aayad aada u cad waay aaya min aayaat illaahi aayaddii iyada ahayd markay waxba ku qaadan waayeen maxaa laga dambaysiiyey uma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa waina min alxijaarati lama yatafajaru minhu اlanhaar waina minha lama yashaqaqu fayakhruju minhu اlmaa
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. saas daraadeed ruuxa haddii ay uusan waxba arkin oo uu jaahil yahay oo waxba loo sheegin oo sidaasay qalbigiisu u ingegan yahay wuu dhaamaa midka intuu diinta dhex galay oo wax ka arkay oo wax ka bartay haddana kitaab xoorka ka dhex siibtay ama dhexdeediiba ku ingegay wax kastoo la akhriyo waa adagta qalbigiisu ma saamoobahay. waa dad fara badan oo saxwada soo maray oo cilmiga soo maray oo laga yaabo ducaadnimo inay soo mareen oo laga yaabo inay culimanimo soo mareen oo muxuu ahaayey wixii haddana ka dhex siibtay oo adiga aayaddii aad ku jilcin lahayd markaad soo wadaba wuuba fahmayaaba maxaad akhrin ba adiga midkan caamayga waxaa laga yaabaa 2 aayadood iyo quraan xadiisuusan maqlin haddaad waxoogaa ku yara garaacdo waa iska jilcaya laakiin kan xadiiskaa soo wadana wuu garan aayaddana wuu garan horuuba u marayba maxaad ku bedeli marka waa mas'ala adag marka quluubtaas ingegtay waa arrin aad iyo aad halis u ah khatarteedana leh keliyana kuma dhacda gaalo iyo munaafiqiin kuma dhacdee dad ahlul iimaan ay ku dhacdaa bal culimay ku dhacdaa oo ducaad bay ku dhacdaa oo dalabatul cilmi bay ku dhacdaa waxaa ka mid a quluubta sifaadka ay leeyihiin iyo qaybahooda cudurrada gala cudur la yidhaahdo indho la'aan quluubta qaar baa indho beela ilaan sida jidhku indho u leeyahay oo labada indhood ee madaxa ku yaalla siduu u leeyahay baa qalbiguna indho u leeyahay labada indho beel waxaa daran inuu qalbigu indho beelo waata qur-aanka rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacaala uu yidhi fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur indhahan madaxa ku yaalla indho beelidoodu iyo inaad weydaayey wax weyn ma ah hadda ogow aadamaha jidhkiisa wax uu waayo waxa ugu qaalisan indhaha ugu qaalisan haddana iyagii waxaa laga dhigay wax weynba ma aha markii la garab dhigo maxay indho beelidda qalbiga labadan midla oo waxaa jira qalbiga indhahoodii ay u furan yihiin ood yaabayso ilaahay tabaaraka wa tacaala mawhibada uu siiyey iyo sida qalbigiisu u iftiimaya u nuuray marka indhabeelka rasmiga waa indhabeelka qalbiga ku dhaco qalbigu markuu indhabeelo maxaa dhacaya xaq iyo baadil ma kala garanayo shirkigii tawxiidkii baa isaga qasmay bidcadii iyo sunnadii baa isaga qasmaysa taacadii iyo macsiyadii baa isaga qasmaysa xaqii iyo baatilkii baa isaga qasmaya waxa ma kala saari karo yacni adiga waxa weeyaan waa ruux indhala oo mugdi hagabsanayo kale ruux markuu indhala yahay gacantana aan la haynin mugdina uu iska hagabsanayo isagu iska socdo miyuu kala arkaya wuxuu ku istaagi ma bohol buu ku dhici ma abeesuu ku istaagi ma balaayaa qaniin waxba lama socdo saasoo kale way qalbigu markuu indhabeelo waxba ma kala saari karo marka quluubtu qaar baa indhala-aantaasi ku dhacda waxaa ka mid a quluubta qaar qur-aanka kariimka uu ku tilmaamay inay tahay quluub mugdiyo ku jirta qalbi madoobaaday oo isaga dhanba mugdi noqday dabcan iftiinkii waay cagsigeeda waxaa ah quluub iftiimaysa oo nuurku ka baxayo ilaahay tabaaraka wa tacaala miaal cajab badan uu ka bixiyey iftiinkii nuur ka baxay quluubtaasi mugdiga ku jirtaay qur-aanka kariimka markuu tusaalaynayay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yaghshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun dulumaatun bacduha fawqa bacdin ida akhraja yadahu lam yakad yaraaha waman lam yajcal illaahu lahu nuuran fama lahu min nuur allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi aw ka dulumaat xaalkii galadaa laga hadlay mugdiyo oo kale fii baxrin lujiyin bad mool ah dhexdeeda ku jira yacni bad aad salkeedu u fog yahay ayuu gudaheeda salkeeda yaalla korkiisa waxaa daboolaya hir biyihii baa ka koreeya biyaha korkooda hir baa yaalla hirkaasi mid kalaa ka sii koreeya hirkaa labaadna waxaa ka sii koreeya daruurtii baa ka sii koreysa waa imise mugdi waa
cirka daruul baa saaran, mugdi bay keenaysa. hir mugdi buu keenaya, hir labaad mugdi buu keenaya, intaasuu ka sii hooseeya. markaasaa rabbi wuxuu ka cabiray idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha. gacantiisa hadduu bixiyo sidaa dhaho maba arki karaba, ma sigayo inuu arko, ma arki karo gacantiisa. jirkiisii qaybo ka mida ma arkahayo. meeshaasi marka waxaa la cabirayaa gaalka qalbigiisu inuu yahay qalbi mugdiyo ku dhex jira. intaasoo hal mugdi keliya ma aha, mugdiyo fara badan, shirkigii, jahligii, intaasoo mugdiba qalbigani ku jira. waxaa cagsigiisa ah qalbiga ka horeeye la soo warramay ee Allah tabaaraka wa tacaala ka soo warramay qalbiga ruuxa mu'minka iyo siduu u iftiimay. Allahu nuuru as-samaawaati wal ard mathalu nuurihi kamishkaatin fi misbah. wuxuu leeyahay Ubay ibn Kacb markuu fasirayo mathalu nuurihi fi qalbi al-mu'min buu leeyahay. ilaahay nuurkiisa mu'minka qalbigiisa ka baxaya ee ka iftiimayay waxaa lagu mithaaliyey waa ka tusaalaha laga bixiyay kamishkaatin fiha misbah, almisbahu fi zujaaja wahakada ila aakhir al-aaya. marka qalbiga mu'minkuna waa iftiimaya, qalbiga gaalkuna mugdiyo ku jira. qulubta qaarkood waxaa laga cabiray alqalbu almuqaffal, qalbi isaga dhan ba la qufulay oo xidhan. shar baa ku sii jiray, sharkii ku jiray baa lagu qufulay, meelihii wax ka soo geli lahay oo dhan baa laga xidhay. saas daraaddeed shar ku jirayna ka bixi maayo, khayr kor ka yimidna soo geli maayo. meelo badan baa qur-aanku arrintaa iyadaa ku sheegay, oo waxaa ka mid a qowlullahi tabaaraka wa tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha. war qur'aanka miyaynan tadabburaynin oo macnihiisa dhuuxaynin oyna u fiirsanaynin, mise quluubtooda qufullaa saaran, mise quluubtii waa xidhan tahay. marka quluub xidhan baa jirta. qalbigu markuu khayrka u furaya markaasuu wax qaadanaya. ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid. waa markii laga soo warramay mashhad ka mida mashaahidtii qiyaamada iyo sida yani hawshu u adag tahay, oo laga soo bilaabay geeridii iyo xaaladda marka ilaahay loo hortagay iyo sida loo qaybsami doono iyo xaaladda markii laga soo warramay waxaa la yidhi ina fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid. marka qalbi wixii qaadan kara oo weelayn kara oo furan oo u diyaarsan, markaasaa ruuxu intifaacsan kara. laakiin qalbi aan u diyaarsanayn oo wasakhaysan ama qufulanoo wixiiba uusan geli karaynin, maanta dhan haddaad garaacdo wax badani ka imaan maayo. arrimahaasi marka wax weeyaan waxay qayb ka tahay inaan bal sawir ka bixinno quluubta aadamuhu iyo say u kala duwan tahay, iyo qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigu sal lla alay wasalam siyaabaha ay wax uga sheegtay. waxaa ka mida qalbi waxaasoo dhan ka fayow. quluubta waxaa ka mida qalbi waxaasoo dhan ka fayow, cuduradaasoo dhan ka fayow, aan jiranayn, fayow. waana midka ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadiisa geli doona bilaa cadaabin walaa xisaab. waa fayow yahay, wuxuu ka fayow yahay shirkigii, wuxuu ka fayow yahay bidacii, wuxuu ka fayow yahay khilligii iyo xiqdigii, wuxuu ka fayowdahay xumaantii. waa qalbi fayowa. waa ka ku yimid nabiy llaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu